ما حسبك الله من هذا الغدو ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة انصرفنا
نفرا من الجن 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 وانصرفنا عنك نفرا من الجن والسلام والمرانة فلما حضر فقال وانسجد فلما غضي الأمام في المنظرين تفيد وحوقين عبال بس بلا ما بسوى شيطان وانصرفنا عنك نفرا من الجن 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 وانصرفنا عنك نفرا من الجن والسماء والقرآن فلما حضر فقال وانسجد فلما غضي الأمام في المنظرين قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا لا غصة منها كده صور الجبري وبينها الفرش وبينها الفرش لو كان يعلمون لأن المنافق لا يقف في العلام المفيد يا شافي يا شافي ولا أبرز من الجن أبرز من الجن أبرز من الجن سلام الملل ومن الجن ومسنا ولم لا غصة عشرة وزال الرابع في توليها ماشي بكم صافر يسلسل عني ما يولي إله كده صدر وماشي بكم يسلسل رب العالمين غير سنة بالتالي بالمحطين بلاش بلاش عيط في الجبال بلاش كده ريجي شعيري بلاش بلاش كده بلاش كده بلاش عفريتي بلاش عفريتي وبلاش بلاش dadka sheegta magaca Soomaal madhabta aan aaminsanayna waa Shaafiiciye weeyaan marka casharka biyaha marka weelka lagu shubo asalkooda waa biyo weeyaan laakiin marka lagu shubo saliid marka lagu shubo biyaha waxay noqonayaan biyo saliid leh
marka lagu shubo oomo biyaha waxay noqonayaan biyo oomo leh marka lagu shubo maxaa ku yidhahdaa timir marka lagu qoosho biyo timir lagu qooshay noqonayaan laakiin marka bismillaahi raxmaani raxiim lagu yidhaahdo waxay noqonayaan biyo quraan lagu daray biyo quraan leh waxaana loo yaqaanaa san wada ognahay cashar waxyaabihii ugu weynaa raggii dagaalamayey nibcada iyo khayrka rabbi igu manaystay moodaya in laga maaragtay siibi karo hadal iyo maaragtay iyo duriin waxaa weeyaan ma aysan fahmin shaydaanka marka lagu shubo biyaha qur-aanka lagu tufay dhimbilaha naarta way kaga kulushay qofka xanuunsanay muslimkaana marka lagu saydhiyo caafimaad buu ka qaadayaa maxaa yeelay ummaddani dugsiga ayaa la tegi jiray macallinka iyo waxaa loo tegi jiray ardayda weel biyo ku jiraan baa loo geyn jiray deedna biyahaasa qofkii xanuunsanaa lagu saydhi jiray waana la cabsiin jiray ninka maarata arrintaa ka duulaya wuu og yahay laakiin dagaalkii baa ka galay halkan waxaa laga tufaa biyo quraan leh deedna waa lagu saydhiyaa qofka muslimka dhammaan ummadda meesha fadhisana waa lagu saydhiyey waxayna ka mid tahay saddexda arrimood oo qur-aanka laga helo raxmad hanuun iyo dawaa qur-aanka qofka lagu akhriyey ama isku akhriyey uu helaa waa qayb raxmaddii qur-aanka ka mida weeyaan maalan makiinadda markaan u tagno عقدي سسمك عقدي كده كان كان سوقت سودا garanayaan waa bishin lagu talagalay in lagu mayro maaratay sida baaskiilka mootada kale ama gawaarida yar anagu waxaan u isticmaalnaa in biyaha samsamka biyaha samsamka ayaanu soo qaadnay halkaa waxaa ku jira 114 qur-aankaan ku tufnay deedna waxaan ku shubnay biyo samsama ayaan ku shubnay samsamkii 114 ayaan u isticmaalnay mishiinkan inaan ku gaarsiino walaalaha qur-aanka lagu akhrinayo arrintanna waxaa weeyaan qariib weeye qariib dadku way qariibsanayaan maxaa yeelay ninka ilaajka hawshan ma qaban karo annagana ilaahay baa noo fududeeyey marka inuu la yaabo oo qofka uu ku qasban yahay annagu ummaddaan u taagannahay misaal dadka halkaa fadhiya qofka awooday waxaa laga qaaday $5 service baan u goynay iyo meesha kiradeedii iyo mid fara badan oo xaq u yeelatay in lacagta la gaarsiiyo waxaan noo saarana waa $3 marka maanta ma jiro cilaaj qofka $3 laga qaaday kuma yaallo Soomaaliya marka waxyaabahan maartay lagula haysto waxaa ka mid ah lacagta yaran qaadnay ee shaqada badan in ummadda u qabanayno waana midda ilaahay nagu aqbalay ee kuwa indhala ilaahay noogu shaafiyey iyo kuwa sixran ilaahay sixirka uga furay kuwa maartay curyaana ilaahay cagooda ugu soo celiyey marka halkaana waxaa ku jira samsam iyo qur-aan wataa dadka lagu buufinayey ee maaragtay lagu rushaynayey marka rushayskaas iyo qur-aanka waxaa weeyaan weligeenna waan wadi doonaa sanadkan baa 10 ku ah intaan noolahay shaqadaasaan qaban doonaa baaraka allah fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu